maanta Soomaaliya waxay taagan tahay marxalad siyaasadeed oo xasaasi ah. Khilaafyo u dhaxeeya dowladda iyo mucaaradka, walaac amni iyo kalsooni darro ka dhex muuqata. Bulshada ayaa hareeyay jawiga doorashada. Siyaasiyiintu waxay ku mashquulsan yihiin qorshahooda siyaasadeed, halka shacabka intiisa badan ay sugayaan jihada uu dalka u dhaqaaqayo. Xilli uu dalka wajahayo xaalad adag, dowladda federaalku waxay sheegaysaa in qorshaha socda uu yahay mid dalka u horseedaya hanaan dimuqraadi ah. Hase yeeshee madasha mucaaradka iyo siyaasiyiin kale ayaa ka digaya in doorashada lagu wado qaab aan heshiis lagu ahayn. dhinaca kale banaabaxyo ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho bishan May 10-keedii, iyadoo shacabka qaar ay ka soo horjeesteen burburinta dhulal iyo guryo ay deganayeen. cabashooyinka shacabka iyo xiisadda siyaasadeed ee taagan ayaa sare u qaaday walaaca ku saabsan mustaqbalka xasiloonida dalka. waxaa sidoo kale soo taraya walaaca laga qaba in xiisadda siyaasadeed ay saameyn ku yeelato amniga iyo xasiloonida dalka. hadallada siyaasiyiinta iyo dhaqdhaqaaqyada mucaaradka iyo dareenka shacabka dhammaantood waxay sawirayaan marxalad adag oo Soomaaliya wajahaysa. haddaba maxaa dhab ahaan ka dambeeya khilaafaadka sii xoogaysanaya ee ku saabsan doorashada Soomaaliya? yaase gacanta ku haya jihaynta go'aanada siyaasadeed ee lagu kala aragti duwan yahay? sideese dhinacyadu u kala taageersan yihiin nidaamka doorasho ee la doonayo? barnaamijkan waxaan ku eegaynaa doodaha kala duwan ee hareeyay doorashada Soomaaliya, cabashooyinka shacabka, iyo saameynta ay xaaladdan ku yeelan karto mustaqbalka dalka. doorashooyinka Soomaaliya waxay inta badan ku soo aadaan xilli siyaasadda dalka ay kacsan tahay. madaxweynaha xilka hayo wuxuu doonayaa inuu sii joogo, mucaaradku wuxuu ku doodaa in nidaamku uusan cadaalad ahayn. dowlad goboleedyaduna waxay mararka qaar noqdaan awood kale oo saameyn weyn leh. marka la gaaro xilliga doorashada, waxaa bilaabma kulamo qarsoodi ah, waxaa furma wada xaajoodyo aan shacabka loo sheegin. qaar waxay ka dhacaan hoteelo magaalada Muqdisho ku yaala, halka qaarka kalena dibadda dalka ay ka dhacaan. waxay siyaasiyiintu isku dayaan inay helaan taageero siyaasadeed, mid dhaqaale iyo mararka qaar taageero caalami ah. sababtoo ah Soomaaliya doorashada mar walba ma ahan tartan qof iyo cod u dhaxeeya, mararka qaar waa tartan u dhaxeeya dana waaweyn. doorashada Soomaaliya waxay mar kale soo bandhigaysaa sawir adag oo ka turjumaya is-afgarad la'aanta ka dhex jirta dowladda federaalka, maamul goboleedyada, mucaaradka iyo saameynta dalalka shisheeye. inkastoo la isku dayo in la dhiso nidaam doorasho oo midaysan, haddana khilaafaadka siyaasadeed ayaa weli ah caqabad muuqata oo dib u dhigta horumarka. maamul goboleedyada ayaa door muhiima ku leh doodaha la xiriira doorashada, iyagoo mararka qaar ku dooda in awoodda lagu ururiyo dowladda dhexe ay wiiqayso federaalka. tani waxay keentaa in heshiisyada siyaasadeed ay noqdaan kuwo adag oo waqti badan qaata, taasoo saameyn ku yeelata kalsoonida guud ee nidaamka. mucaaradka Soomaaliya ayaa si joogto ah u dhaliila qaabka ay dowladdu u wado doorashooyinka, iyagoo ku tilmaama in ay yihiin kuwo hal dhinac u janjeera oo aan si buuxda u matalin rabitaanka shacabka. waxay sidoo kale su'aal geliyeen kalsoonida nidaamka doorasho iyo hufnaanta hay'adaha maamula, taasoo sii kordhisa xiisadda siyaasadeed. dhanka kale, dalalka shisheeye iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa si dhow oola socda xaaladda Soomaaliya, iyagoo mararka qaar taageera hanaanka doorashooyinka. si kastaba ha ahaatee, saameyntooda ayaa noqota mid muran dhalisa, iyadoo dhinacyo badan ay aaminsan yihiin inay si dadban u saameeyaan jihada siyaasadda gudaha. shacabka Soomaaliyeed ayaa ah kuwa ugu weyn ee rajada leh, inkastoo ay la kulmaan hubanti la'aan siyaasadeed. dadku waxay doonayaan doorasho hufan, nidaam la isku halleyn karo, iyo hoggaan ka jawaaba baahiyahooda dhabta ah. balse xaaladda jirta ayaa mararka qaar dhalisa niyad jab iyo kalsooni darro. ugu dambeyntii, mustaqbalka doorashada Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay in la helo nidaam la wada aqbalo oo ka madax bannaan eedeymo ku saabsan eex iyo kalsooni darro. haddii la xalliyo khilaafaadka u dhexeeya dowladda, maamul goboleedyada, mucaaradka iyo saameynta dibadda, waxaa suuragal ah in shacabka Soomaaliyeed ay gaaraan rajo dhab ah oo ku saabsan dowladnimo xasiloon. saameynta beesha caalamka ee Soomaaliya waa mid si weyn uga muuqata siyaasadda, amniga iyo dib u dhiska hay'adaha dowliga ah. sanado badan oo Soomaaliya ay ku jirtay xaalad dagaal iyo xasilooni darro ah, taageerada dibadda ayaa noqotay tiir muhiim ah oo lagu sii hayo howlaha dowladnimada iyo adeegyada aasaasiga ah. dalalka deeq-bixiyeyaasha iyo hay'adaha caalamiga ah waxay si toos ah uga qayb qaataan maalgelinta miisaaniyadda, tababarada ciidamada, iyo taageerada hanaanka doorashooyinka. taageeradan ayaa gacan ka geystay in la helo horumar muuqda, balse isla markaana waxay abuurtay ku tiirsanaan dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo dalka saameyn ku yeelata mustaqbalka fog. si kastaba ha ahaatee, saameyntan beesha caalamka waxaa la socda dhibaatooyin laga dhaxli karo. waxaa ka mid ah in go'aanada gudaha dalka mararka qaar ay u muuqdaan
kuwa ku xiran dana dibadeed taasoo wiiqi karta madax bannaanida dalka. sidoo kale ku tiirsanaanta joogtada ah ee gargaarka dibadda waxay hoos u dhigtaa awoodda dalka uu ku dhisi lahaa dhaqaalihiisa iyo hay-adihiisa madax bannaan. dhanka kale faragelinta siyaasadeed ee aan sida muuqata loo dareemin ayaa horseedi karta kala qaybsanaan gudaha ah, gaar ahaan marka kooxaha siyaasadeed ay ku kala safan yihiin dana iyo saamayn dibadeed oo kala duwan. taasina waxay sii adkeyn kartaa wadahadallada iyo isku tanaasulka loo baahan yahay si dalka loo gaarsiiyo xasilooni siyaasadeed oo waarta. ugu dambeyntii, Soomaaliya waxay u baahan tahay inay hesho dheelitirnaan u dhaxayso taageerada beesha caalamka iyo dhismaha awoodda gudaha. haddii aan si tartiib ah loo yareyn ku tiirsanaanta isla markaana la xoojin hay-adaha dowliga ah, waxaa laga yaabaa in dhibaatooyinka maanta jira ay noqdaan kuwa sii socon kara mustaqbalka fog. warbaahintu waxay door weyn ka ciyaartaa qaabeynta aragtida shacabka ee la xiriirta siyaasadda iyo xaaladda doorashooyinka. idaacadaha, telefishinada iyo baraha bulshada ayaa noqday ilaha ugu muhiimsan ee dadka ka helaan macluumaadka siyaasadda, taasoo si toos ah u saamaysa fahamka ay ka qaataan hanaanka doorasho iyo saameynta siyaasadda dalka. si kastaba ha ahaatee, xilliyada doorashada waxaa mararka qaar soo baxa warar isburinaya, dacaayada iyo macluumaad aan la xaqiijin. tanina waxay keentaa jahwareer bulsho, waxayna dhaawacdaa kalsoonida lagu qabo hay-adaha doorashooyinka iyo dhinacyada siyaasadda ee tartamaya. wararka degdega ah ee aan la hubin ayaa si gaar ah u kordhiya xiisadda iyo kala qaybsanaanta. baraha bulshada ayaa noqday aalad si weyn u saamaysa jihada siyaasadda, maadaama ay fududeeyeen faafinta aragtiyo kala duwan oo isugu jira dhaliilo iyo taageero, taasoo si toos ah u saameyn karta dareenka bulshada iyo go'aanada siyaasadeed. inkastoo ay fursad siiyeen codadka shacabka, haddana waxay sidoo kale noqdeen meel ay ku bataan wararka khaldan iyo ololaha saameynta leh ee aan si cad loo xakameyn. ugu dambeyntii, doorasho hufan waxay u baahan tahay warbaahin mas'uul ah iyo bulsho ka feejigan saameynta macluumaadka la faafinayo. haddii la xaqiijiyo saxnaanta wararka iyo wacyiga shacabka, warbaahintu waxay noqon kartaa aalad lagu dhiso kalsooni iyo midnimo, halkii ay noqon lahayd mid sii hurisa khilaafaadka siyaasadeed. xaaladda amni ee Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ayaa gashay marxalad xasaasi ah oo ay hareeyeen xiisado siyaasadeed iyo walaac bulsho, kuwaasoo si cad uga muuqda dhaqdhaqaaqa iyo amniga wadooyinka muhiimka ah. ciidamada ammaanka ayaa kordhiya feejignaanta iyo koontaroolka goobaha muhiimka ah, iyadoo ay jiraan cabsi laga qabo in banaanbaxyada socda ay saameyn ku yeeshaan nabadgelyada guud ee caasimadda. magaalada Muqdisho waxaa ka socda banaanbaxyo dadweynuhu ay ku muujinayaan diidmo la xiriirta dhulal ay dowladdu ka wado burburin iyo dib u habeen, kuwaasoo saameyn ku yeeshay qaar ka mid ah qoysaska deegaanka. dadka mudaharaadaya ayaa dalbanaya in la hakiyo tallaabooyinkaasi ilaa xal cad iyo wadahadal laga gaarayo, iyagoo muujinaya walaac ku saabsan mustaqbalkooda nololeed. dhanka kale, madasha mucaaradka ayaa si adag u dhaliilaya dowladda federaalka, iyagoo ku eedeeyay in dowladda ay kordhisatay muddaxileedkeeda oo ku ekeed 15 May ee 2026. madasha mucaaradka waxay sidoo kale ka digayaan in xaaladda siyaasadeed ee aan la xalin ay horseedi karto qalalaase iyo kalsooni darro sii ballaarata. ugu dambeyntii, Soomaaliya waxay wajahaysaa marxalad xasaasi ah oo u baahan wadahadal dhab ah, isfahan siyaasadeed iyo tixgelin loo sameeyo cabashooyinka shacabka. haddii aan la helin xal midaysan, waxaa suuragal ah in xiisadaha taagan ay saameyn ku yeeshaan amniga iyo xasiloonida iyo jihada siyaasadeed ee dalka. Soomaaliya waxay maanta mar kale ku jirtaa marxalad siyaasadeed oo adag, taasoo dib u celinaysa xusuusta doorashadii hore ee lagu doortay madaxweynaha haatan talada haya. xilligii hore waxaa jiray heshiisyo siyaasadeed oo culus iyo is-afgarad ay dhinacyadu ku gaareen in si kumeel gaar ah loo mideeyo jihada dalka, inkastoo ay jireen khilaafyo iyo caqabado waaweyn. maanta xaaladdu waxay u muuqataa mid ka duwan, iyadoo ay jiraan muran siyaasadeed oo ku saabsan hanaanka doorashada, banaanbaxyo ka dhashay cabashooyinka shacabka ka yimid, iyo eedeymo isdaba joog ah oo u dhexeeya dowladda iyo madasha mucaaradka. xiisadan ayaa abuurtay jawi aan weli si buuxda u deganayn, gaar ahaan xilligan lagu wajahayo wakhtiga doorashada iyo suurtagalnimada khilaafka ku saabsan wakhtiga xilka. mudaharaadyada socda waxay muujinayaan in shacabka ay doonayaan in la maqlo codkooda, gaar ahaan arrimaha la xiriira dhulalka. xalka ugu dhow ee xiisadan waa wadahadal furan, dhageysi dhab ah oo loo sameeyo cabashooyinka, iyo in laga fogaado tallaabo kasta oo sii huri karta xiisadan.
ugu dambeyntii waxa laga baran karo waa in Soomaaliya aysan u baahnayn kaliya doorasho balse ay u baahan tahay kalsooni siyaasadeed, heshiis qaran iyo hay'ado xooggan. madasha mucaaradka, dowladda iyo shacabkuba dhammaantood waxay dani ugu jirtaa in la gaaro heshiis ku salaysan cadaalad si dalka looga saaro wareegga khilaafaadka loona gaarsiiyo mustaqbal xasiloon oo waara.